madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xilligan socdaalo kala duwan waxa uu ku bixinayaa maamul goboleedyada dalka wallow uu ku hormaray maamulka Koonfur Galbeed gaar ahaan xarunta ku meel gaarka ah ee magaalada Baydhabo uu gaaray halkaas waxa uu kala kulmay mas'uuliyiin kala duwan oo ugu horeeyo madaxweynaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicaziz Xasan Maxamed Laftagareen xubno ka tirsan labada gole ee dawlad goboleedkaasi gaar ahaan golaha wasiirada iyo sidoo kale xildhibaanada golaha dawlad goboleedkaasi Koonfur Galbeed ee Soomaaliya waxa sidoo kale halka uu gaaray kamid ah magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dawlad goboleedka Galmudug halkaas oo inta uu ku sugan yahay uu kulamo kala duwan uu kula qaadanayo madaxweynaha dawlad goboleedkaasi Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada waxa uu kala hadlayaa sidii dawladdiisu garab weyn loo siin lahaa isla markaana looga gudbin lahaa caqabadaha kala duwan ee xilligan qaarkood ku hor gudboon dawladda cusub ee uu hogaamiyaha ka yahay madaxweynaha dhawaan la doortay ee Xasan Sheekh Maxamuud qaar kamid ah shacabka Muqdisho ayaan weydiinay waxa uu safarka madaxweynaha ka bedeli karo xaaladda siyaasadeed ee dalka qaarkoodna madaxda maamul goboleedyada looga shakisan yahay inay garab weyn u ahaayeen madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo waxa ay tilmaameen in safarkan uu yahay safar nabadeed isla markaana uu gabi ahaanba ku marayo madaxda maamul goboleedyada dalkana uu kula kulmayo shanta maamul goboleed ee dalka maadaama xilligan ay ugu harsan yihiin kaliya saddex maamul goboleed sida Puntland Hirshabelle iyo sidoo kale dawlad goboleedka Jubbaland oo laga yaabo in saacadaha soo aadan isagana uu kormeero kala duwan ku bixiyo saay wadhawahay adiga idaacadda City Soomaaliya magacaygu waa Cabdi Qani Cabdikariin kana mid ah dhalinyarada ku nool magaalada Muqdisho safarka madaxweynuhu ugu bixi doono gobolada oo aad ugu baxay oo jooga Galmudug runtii waa soo dhaweynaynaa waa arrin laga sugayay madaxweynaha inuu soo booqdo insha Allah gobolada dalka waa arrin loo baahan yahay madaxweynaha mar hore laga rabay taladiisana ku jidhay qorshihiisana ku jidhay hadday noqoto dalkana koleeto mucaarad iyo muxaafid buu leeyahay run ahaantii waqtiga kala taagan yahay waxa la isku xantaayo ama la yiraahdaa xashiiq tareen buu wataa cid walba nabadiina oo ahayd ama cid walba ahayd mucaarad ama cid walba ahayd muxaafid waxa leenahay koleeto waa ku qasbanaa 5 sano oo madaxweynaha qaranka meesha maamulayo in tareenka uu wato dhinac laga raaco taladana 5 sano leeyahay 4 sano ba sida saxda ah iyo 5 sano sanadka u dambeeyo oo doorasho waxa lagu jiro insha Allah soo dhaweynaa madaxweynaha inuu gobolada kale tagoona ma rajaynaa hadii la yiraahdo ayaa badan waxa jira madaxweynaha lagu sameeyay sida isaga iyo madaxweynihii hore in hawada lagu celiyo intaas oo dhan waxa lagu tilmaamay in madaxda maamul goboleedyada qaarkood ay qayb ka ahaayeen ma la isdhihi karaa maadaama hadda uu sheegay inuu cafiyay oo cidna wax uusan u qabin hadawdi gadaal wax kale ka keenay doono runtii cafisku qof walba dalka maamulaya cafiska loo baahan yahay talada markuu soo fariisana run ahaantii inuu cafis fidiyaa asaga ku xiran tahay madaxweynaha in lagu celiyay asaga iyo dadka horeeyaba way jiraan marka talada cidda haysay ba maamulka leh haddii isagoo argos sameynayona uu yaani talada cidda haysay markaas ka faa'iideysanayna waa jaanis isaga u furan haddii cafis fidinayana kale soo sheegay sana waa jaanis u furan laakiin kale talada xilliga uu hayo annagu kama hor dhici karno aywa garaadkii Soomaaliyeed garaad Cali Maxamed Bartirow wixii mucaarad iyo wixii muxaafid way soo lamaadeen dalkan waxyaabo badan oo soo maray doorasho la galay doorashadii way soo lamaatay Xasan Sheekh Maxamuud ana ku guuleystay waa madaxweyne mar hore xilka uu hogaamin jiray waajib qaran ka saaran weeye inuu maamul goboleedyada soo kormeero xaaladaha ka jiro arko dalka abaaraha ka dhacay intii doorashada ku jireen oo shacabkan Soomaaliyeed ay ku dhamaanayeen abaarahaas iyo dhibkaas ba'as ka jiray dalka waxba looma qaban wasiirada gargaarka ee dalka Khadiija waxba kama qaban xaaladaas shacabkii Soomaaliyeed cid ku booqato meeshooda ma laha maanta indiina idin macinayn markuu Baydhabo ka bilaabay in Xasan Sheekh Maxamuud uu la kulmay dad aad u diif adagna ay ka days baahi nololeed dhibaatooyinka dalka ku soo barakacay mashaakilaadkii haystay iyagana doorasho ayaa u muuqatay wax kale ay maqlaayeen ma laha dalka in shacabkii Soomaaliyeed lagu tuntay yaa taas kaaga cad waa qaar kamid ah shacabka magaalada caasimadda ah ee Muqdisho oo ka warbixinay isla markaana ka hadlay dareenkooda ku aadan waxa uu safarka madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya ku bedeli karo safarada uu ku bixinayo madaxda maamul goboleedyada dalka ama magaalooyinka xilligan xarumaha u ah dawlad goboleedyada dalka Cumar Guxurbaynta City Muqdisho waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube
adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.